السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال كسو دوادا وركا ورباهين تبدوين وركا waxay la socodsiinayaan aniga ah Maxamed Cabdirashiid qodobada wararka noogu door corona waxa kamida hadalhayn xoogan oo ka dhalatay booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ee Norway xog cusub ayaan idinkaga haynaa gudoomiye Muudey oo dalka dib ugu soo laabtay dowladda siyaasadeedna ka sameeyay garoonka aadan cadde xilli mooshin xoogan laga diyaariyay dowladda Soomaaliya oo xil cusub u magacawday fanaanka loo yaqaan Nimcaan Hilaac xilli ay Somaliland baadi goobayso Kenya oo ku dhawaaqday hadal Soomaali badan argagax iyo walaac ku abuuray Mukhtaar Robow oo la dhigay isbitaal Digfaar maxaadan ogeyn oo ku soo kordhay caafimaadka Robow iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Khayre oo shaqaalaha ka mamnuucay inay isticmaalaan baraha bulshada intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon haatan asagii fidsan waa maalinimo Talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha 6aad 2019 ku soo dhawaada warka iyadoo shalay ay safar gaaban ku timid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalka Norway Marie Eriksen ayaa waxa durba soo ifbaxaya su'aalo ku saabsan safarkeeda muddadii ay ku sugneen magaalada Muqdisho waxa ay kulamo la qaadatay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya sida ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku-xigeenkiisa iyo wasiirro kale inkastoo aan la soo bandhigin qodobada dhabta ah ee isla soo qaadeen haddana qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo mashaariicda ay Norway ka fulinayso Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay in Soomaaliya qayb ka tahay ajendaha looga hadlayo madasha Oslo Forum ee toddobaadkan soo socda ka furmaya Marie Eriksen ayaa ka hor inta aysan Muqdisho soo gaareen waxa ay soo martay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ay kulamo kula yeelatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya Monica Juma haweeneydan ayaa diyaaradii shalay keentay Muqdisho waxay ahayd diyaaradda 540 oo laga leeyahay dalka Kenya waxaa soo baxaya shaki ku saabsan in safarkeeda uu qayb ka ahaa arinta xiisadda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan muranka dhinaca badda qayb ahaan Norway ku lug leedahay maadaama shirkadda laga leeyahay dalkeeda ay shahamin ku sameysay dhulka badda ee sheeganaysa Kenya sidoo kale waxay muddo ku riixaysay Kenya dhulka badda in la rumaysan yahay in shidaal ku jiro dowladda Norway ayaa u muuqata mid xilligan ciyaaraysa doorkii ay horey ugu lahayd Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay in muddo ay isha ku haysay arrimaha shidaalka Soomaaliya waxaana socdaalkeeda Muqdisho ku soo aadaya toddobaadyo kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay sharciga batroolka dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii maalmo uu dalka ka maqnaa Muudey ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee maanta lagu soo dhaweeyay isla markaasna waxa uu ka warbixiyay socdaalkiisa uu ku tagay dalka Turkiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya ololaha mooshinka laga diyaarinayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey waxaana socda kulamo ay leeyihiin xildhibaanada mooshinka wada daawadayaal halka aad wali nagala socotaan warbaahinta badweyn haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan wararkeena iyo warbixinadeena mar walba aan soo galino halkan fanaanka caanka ee loo yaqaan Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa maanta loo magacaabay xil cusub kadib wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Maareeye wareegtadan ayaa Nimcaan Cabdiraxmaan loogu magacaabay agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta gobolada Waaberi waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Xasan Barrow wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta oo xilka looga qaaday agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta gobolada Waaberi ayaa sidoo kale Maxamed Xasan Barrow loogu magacaabay taliyaha wasiirka ee arrimaha horumarinta fanka
fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ka mid ah fanaaniinta da'da ee soo caanbaxay sanadihii ugu dambeeyay. fanaanka oo isaga soo tagay magaalada Hargeysa oo ku noolaa kadib cadaadis xoogan oo uu kala kulmay maamulka Somaliland, wuxuu ka mid yahay fanaaniinta loogu taageero badan yahay dalka isagoo leh dabeecad wanaagsan. dhanka kale, sida aan ka soo xignay wargeyska lagu magacaabo Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya, dowladda Kenya ayaa waxay ciidamo dheeraad ah soo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya, waxaana xuduudda laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada Kenya. saraakiisha Kenya ayaa waxay cabsi ka qabaan in weeraro dalkeeda ay ka geystaan xarakada Al-Shabaab maadaama la sheegay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen dalkooda. warbaahinta Kenya ayaa qortay saakayn in si rasmi ah loo xiray xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan magaalada xeebeedka Lamu. ciidamada ammaanka Kenya ayaa howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay saakay ka bilaabeen deegaanada ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. taliska booliiska Kenya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay u diyaar garoobeen sugidda amniga isla markaasna ay ka hortagi doonaan weerar kaga imaada dagaalamayaasha Al-Shabaab. tan iyo markii ciidamada militariga Kenya ay gudaha u soo galeen gobolada koonfurta Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 ayaa waxaa dalkaasi ka dhacay weerar dad badan lagu dilay oo ay geysteen dagaalamayaasha ka tirsan xarakada Al-Shabaab. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur la dhigay isbitaal digtare magaalada caasimadda ee Muqdisho 15kii Ramadaan kuna beegan 21 bishii la soo dhaafay ee May kadib markii uu xanuunsaday. sida warbaahinta Badweyn ee ogaatay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ee warbaahinta Badweyn u sheegay in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur uu xanuun soo wajahay kaasoo ah uu xanuun ka soo wajahay kaliyaha waxa uuna isbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood ah. waxaa la dhigay qayb gaar ah oo loo diiday inta badan shaqaalaha iyo guud ahaan dadweynaha, waxaana arrintaasi gacanta ku haya dhakhtarka ugu sarreeya Digfeer kaasoo u dhashay dalka Turkiga. Sheekh Mukhtaar Roobow oo hadda wanaagsan oo xaaladiisa soo hagaagaysa ayaa sheegay in xanuunkan kaliyaha uu horay u qabay isla markaasna uu marar badan ku soo kacay. markii uu ka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayaa sidaan oo kale waxaa horay loo dhigay isbitaal, waxaana sababihii ugu soo biiray dowladda la sheegaa inay qayb ka ahayd arrintaas caafimaad. dhaqaatiirta caafimaad ee Abu Mansuur ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay, waxayna u qoreen dawooyin iyo dhaqaatiir gaar ah oo la sheegay inay siin doonaan dawadaasi sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan isbitaal Digfeer. sidoo kale arrintan ayaa waxaa Badweyn Times u xaqiijiyay nabadoono iyo saraakiil kale oo u dhow Abu Mansuur. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo arrintaas ku saabsan. saraakiil ka tirsan hay'adda NISO oo weydiinay ayaa inoo sheegay inaysan xog badan ka hayn arrintan Abu Mansuur isla markaasna aysan ogaan karin qof kasta, balse ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shalay kulan la qaatay dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo madaxda waaxeedyada wasaaradda. kulankan oo u badnaa isxog waraysi iyo wargelin amarro ka soo baxay shaqaalaha oo dhan loo sheegay inay u hoggaansamaan amarka cusub ee lagu soo rogay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. amarka ka soo baxay ayaa ah in dhammaan shaqaalaha wasaaradda ay mamnuuc ka tahay inay u shaqeeyaan meelo kala duwan oo ka madax bannaan hay'adaha dawliga. arrintaas ayaa si gaar ah waxaa looga digay kooxda Waaberi iyo wariyaasha wasaaradda, fanaaniinta, abwaaniinta iyo majaajilayaasha howlada qaranka ee Waaberi ayaa lagu amray inaysan ka soo muuqan karin warbaahin kale oo si gaar ah loo leeyahay private media, halka wariyaasha la siiyay digniin midaas la mid ah. kooxda Waaberi ayaa inta badan majaajilaystayaashooda waxay ka qayb qaataan riwaayado ka baxa TV-yada gaarka loo leeyahay iyo idaacadaha sida gaarka loo leeyahay iyakana. sidoo kale fanaaniinta ayaa qayb ka ah xubnaha ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee gaarka loo leeyahay. wasiirka ayaa sheegay in la ruqsayn doono qofkii jabiya amarkan. sidoo kale waxaa shaqaalaha laga mamnuucay inaysan Facebook-ooda ku aflagaadeyn karin qof ka tirsan dowladda Soomaaliya.
sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inaysan shaqaalaha aragtida dowladda looga soo horjeedo ama lagu dhaliilayo wax ay sameeyaan aysan ku soo daabici karin baraha bulshada. arrintan ayaa waxay fajaac iyo la yaab ku noqotay dhammaan shaqaalaha wasaaradda qaarkood ayaa ku tilmaamay gumaysi iyo awood sheegasho ama ku tagrafal awoodeed oo uu sameynayo wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. daawadayaal waad ku mahadsantiin daawashada wararkeena iyo warbixinadeena. fadlan la soco wararkeena xiga haddii Allahu yiraahdo. subscribe deh.